maayir ku-xigeenka degmada Baki Dayib Xasan Raaga Cudad oo khadka telefoonka kula soo xiriiray xafiiska warqabadka TV-ga University magaalada Boorama ayaa waxa uu si rasmi ah u soo dhaweeyay khudbad sanadeedkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi maalintii shalay toolahayd uu ka jeediyay golaha wakiilada iyo golaha baarlamaanka Soomaaliland sidoo kale gudoomiye Dayib Xasan Raaga Cudad waxa uu aad ugu amaanay madaxweynaha Soomaaliland furista urur siyaasadeedyada dalka ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Biixi maalintii shalay toolye kan hadaba maayir ku-xigeenka degmada Baki waa muulahaasi ka hadlaya bismillaahir rahmaanir rahiim aadkay wad maadsantahay marka koobaad waxaan salaamayaa adiga saaxiibadaada waxaan aniga iyo degmada Baki oo arnaa khudbad qiimaha qaayeen ahayd inta badan markii hore baan filaynayna way ahayd kolka hore dadka reer Baki waxay aaminsan yihiin xukuumadda ay doorteen ee ahayd kalsoonida la siiyay marka hore in laga daba qaybisto weyn إذا كوي كتغيرنا ينادي ماشي لو حكومي ما ينادي حكومي هو في شلة عادي بام سولوين مركوري مركب لبعض حقيقيا واحد آدم بليان إنها خطبة منه وضرنا مدحوينها يسجل الدورتي مركب كوباد مرة دي الدورتي واحد استوى كتريه ولا خصميه وانقرتي kalsooni dadana lagama hayso inuu in isaga laftiisa gaab laga hayo la ilaaliyo anu waxaan ku qaraxsanahay inuu wixii lagu doortay weyn inuu ummadda mas'uulka yahay isagoo mas'uuliyadiisa u leeyahay ciduu la kulmay ciduu la shaqeynayana waa mas'uuliyadiisa waxaan qabanahay caatay waxaan leenahay badbadaas si fiican u dhamaatay kuwii warkan wadayna waa shareecada arkayna sida wuxuu dhacaan wixii laga sheekeynay waxa taa madaxweynaha gaaray ma yahay malawaal bay ahayd malawaalkiina hortooda ku qarxiyay waxaan leenahay hadaba mas'uuliyiin taasmid bay ahayd ta kale labaad waxay ahayd ururada xisbiyadii waxaan aad u soo dhaweynaynaa xisbiyada la furayo sababtoo ah saddexda sano xukuumadani jirtay waxaan ka bixinaanay laba xisbiyadii commission bay isku haystaan iblaay isku haystaan maxay isku haystaan si taa looga baxo xisbiya caafimaad qaba u soo baxaan in xisbiyada furan aad baan soo dhaweynaa wakale taasadaxaad waxaan soo dhaweynaa waxaan ka hadlayaa hal qodob oo khudbadii madaxweynaha ahayd wasiirka beeruhuna maalin weyto oo ka hadlayay wasiirka beeraha ka hadlay maalin weyto wuxuu waxsoosaarkii ugu badnaa ka soo qabsaday Somaliland sanadka waxaan ognahay anagu kolkaan ka hadlo dhul beereedkii Somaliland oo ka bilaabmay ruuqi meesha la yiraahdo ilaa qabri baxar oo dhulkii Somaliland ku tiirsanayd sidii duufaantii ugu dhacday waxay ku jiraan dadkaasi si looga hoos ka mareen wax soo saar ka soo baxana ma jiro waan gartay marka wasiirku ma waxaan islahaa wasiirku mala kuwan boor qabaya dugorogu baxay xagga hor mana khudradda ummada uga wasiirku mu ilaaway taasi khudbadda madaxweynaha waxaan ka leeyahay hal qodob madaxweynuhu kullay gurmadkii horena si fiican uga qayb qaatay dadkii duufaantu ku dhacday ee ama xoolo lahaa ama beer lahaa ee noo joogay deegaankaasi khudbadiisa malaawan xagga inaan maqlayn mooyaane kuma darin dadka wixii kor soo qaadkoodii kuma darin intaasina inta qariyad ka bixiyaan Hussein Hatiye Jama Hussein Gafane Universal TV Boorama